السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن halkan waa Setay Production bartaan ku leenahay YouTube ee barashada cilmiga kombiyuutarka xogaa muhiimka ah iyo arrimaha bulshada basiiba cilmiga kombiyuutarka xisaabinta xisaabaadka ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Casharkeena saddexaad ayaan hore soo qaadanay oo soo sameynay sida loo soo sameeyo akoonada la dhiganayo markaas lacagta cash-ta ee aad haysato markaas haday baan tahay iyo haday saa tahay iyo haday tahay cash cadaana. haddaba casharkeena afraadna waxaan ku soo qaadan doonaa qofka ownerka ah sidee account markaasi loogu sameyn karaa markaasi owner waxa loo yaqaan equity. haddaba si aan soo sameeyno arrinkaasi waxaan tagi doonaa QuickBooks Enterprise Solution keena dabeetana waxaan tagi doonaa halkii hore soo tagnay ee listiska hal mar click markaasi soo waxa ku soo bixi doona chart of accounts oo ah halka qaab sawireedka akoonada laga soo sameeyaa. click markaasi soo sida tan ayaad gudihiisa ugu soo dhici doontaa. marka gudihiisa soo timaado sida caadada noohayd waxaan soo samaysan doonaa account loo yaqaan equity. marna waad ka maarmi kartaa waxaad samaysan kartaa account-ka hore u samaysnaa ee opening balance equity-ga ayaad ku samayn kartaa edit markaas aad u bixin kartaa cid leh markaasi ganacsigaasi. haddaba si aan u soo edit gareyno marka oo horeysa accounting new tagmayno waxaan taginaa waxa loo yaqaan opening balance equity. right click ban aad yarsiinayna right click marka siino account-kaas ayaan ka dhiganaa markaasi qofkii lahaa balse inteenan edit garayn waxaan soo sameynaynaa account la yiraahdo account dabeetana new account ayaan tagi doonaa owner ayaan soo bixin doonaa owner only waayahay. halkan baan imanayna waxaan taginaa markaasi equity ayaa dooranaysaa wa choose one account time and click continue. dabeetana waxaan ka dooranaa equity markaan click siino hantiilaha yeenu ka dhiganaa. horta halka ciwaan sare ayaan u sameynaa oo la yiraahdo up title ama account name oo ah owner marka sa yiraahdo waxaan oranayaa save and close markaan soo yiraahdo halkan ayaan tagayaa waxaan oranayaa dabeetana equity-ga sakada equity-ga halkan equity waa ku qoran ka u sareeya ayaan tagayaa waxa weeyaan opening balance ayaan right click siin edit account ayaan oran. edit account marka yiraahdo sida tan joogo waxaan oranayaa edit account-kaasi waxa weeyaan waxaad ka dhigtaaba inuu yahay ownerku Jaamac Ceerigaabo ayaan ka leeyahay Jaamac Ceerigaabo sub account waxa uu hoos tagayaa marka owner aan soo samaysanay ay Jaamac Ceerigaabo owner weeyaan oo qaybta ownerka waa ownerka shirkadda save and close baa leedahay. hadda waxaan soo samaysanay account-ka ah owner oo ah Jaamac Ceerigaabo. account-nada ayaan soo sii wadi doonaa. haddaba account owner ah soo samaysato maxay niri waxaan niri waxa tagi doontaa halkaas oo ku qoran tahay opening balance equity ba right click siinay dabeetana waxaan niri edit marka ku sameynayna magacii aha opening balance equity baan ka bedelnay. owner-kana waxaan soo samaysanay si gaar ah qaacidada saxsan ee owner ku soo sameyn kartaa waa tan casharkan ku saabsan. owner-kuna waxa weeyaan cidda shirkadaas iska leh ayaa owner mar walba noqonaysa. owner badan saddex afar ka shan owner loogu yeelan karo shirkadna cashar guud oo gaar ah ayaa marka casharadan dhamayno insha Allah haduu eebaha awoodo la idmo aan ku soo qaadan doonaa. casharkeenan oo aha casharkii afraadna halkaas uu noogu joogaa waana casharkan ku soo qaadanay casharka afraad sida loo soo sameeyo waxa loo yaqaan account equity. waad mahadsantiin meel kasta aad joogtaan.